labaad aayadihii uu noo akhriyay sheekha khayr alle ha siiyo waxay ka sheekaynayaan waxaa weeyaan midnimo fawaa'iday leedahay iyo waxay tari iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa muslimiinta inuu amray inay iswaraarsadaan oy isbahaystaan oy isla socdaan oy mid noqdaan waxaa kale aayadaha noo tilmaameen inuu tafarruqa iyo kala taga iyo faa'iido lahayn inay dadka mid noqdaan waxay wax ku noqonayaan oy xoog ku yeelanayaan oy ammaan ku helayiin markay mid noqdaan aayadaha ayaga waxayna tilmaamayaan inaan mid noqonno oon hal noqonno midda saddexaad waxaa weeyaan haddaan walaal nahay oon mid nahay inay raxmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala korkeenna ay camiri oo dadkoo dhanba ay wada degayiin uu ilaahay risqiga u furaayo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala jidka san ku toosinaayo sidaa liajligeed waxaan igala baahan yahay waxaa weeyaan walaal haddaan nahay inaan mid noqonno oon isku duumanno si uu ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinteenna uu noogu xaqiijiyo uu noogu suurtageliyo marka sidaa waxaan ku daraynaa oo kaleeto qof kasta oo annaka naga mid ah